wewe لقتاداي عند الدقة قلب الولاء حبيبي والله شيء نقول حسه والله أمبون كنت أسكن لكن waxaan ku faraxsanahay inaan kula jiro سيدا كلنا مشكلة nolol بسم الله الرحمن الرحيم كل طوعا ونحسن داود يركو سو دبادة هوكا نقد داون إسان وصعد ميديا عاد نور ركض داوطان برنامج شكل دوان معك برنامج كينو وحو نقوم دونا تلقين تفنكا aan ku soo qaadan doono fanaanada Ugbaad Aragsan iyo fanaanka Qamar Suugaani oo ahaa lamaanihii isguursaday sanadkii 2018 bishii Abriil ee hadda jaceylkooda uu marayo meel aad u xun. intan barnaamijka u gudagalin fadlan janaalka subscribe saar muuqaalka like saar comments inoogu soo qora in la sii wadaag asxaabtiina waad mahadsantihiin. aan ku bilaabnay fanaanada Ugbaad Aragsan ayaa cadeysay inay kala tageen Qamar Suugaani. fanaanada ayaa barteeda Instagram-ka ku soo qoraysay maalmihii ugu dambeeyay nolosha in la qasba ma ahan soo dhawow xajigayga cusub. waxay kala jeedaa inay isfureen Qamar Suugaani. arrintan ayaa noqotay arrin lala yaabo Soomaalida xiisaysa fanka waxaana sanadihii dambe ku soo badanaya dhaqanka Soomaalida inay furaan gabdhaha ninkooda. waana arrin ka baxsan dhinaca diiniyan inay gabdhaha ay furaan nimankooda. laakiin Qamar Suugaani ilaa iyo hadda kama hadlin arrintan. laakiin waxaa la yaab leh gabar la qabo oo dhehayso xaajiga cusub soo dhawow een isqabaan ninkii la yiraahday Qamar Suugaani. Qamar Suugaani ayaa ah fanaan aad u furfuran aad u dabeecad wanaagsan. waa fanaan ixtiraama bulshadiisa waana fanaanka ugu wanaagsan had waqtiga la joogo fanaaniinta reer Hargeysa. fanaankan ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo saaray heeso cajiib ah oo ka hadlaya xaaladda hadda uu ku sugan yahay. fanaankan ayaa isbuuci hore laga faafiyay cod been abuur ah oo lagu sameeyay aaladda maksarka ah codka qofka kale loo bedelayo. Qamar Suugaani ayaa la yaaban arrintan ay sameysay fanaanada Ugbaad Aragsan. fanaanka ayaa sanadkan 2019 soo wajahday arrimo aad u culus. mar in Hargeysa lagu jirdilo mar in laga been abuurto waana arrin lala yaabo. fanaanka ayaa hees u soo qaaday Ugbaad Aragsan oo ah heestaasi hanteena oo isbuuci la soo dhaafay soo saaray. dadka dhan ama adduunka dhan waxay ka hadlayaan jaceylka maalin kasta. jaceylku ma aha mid yar waa wax baaxad weyn oo ilaa hadda aan la ogaan karin sida uu yaalo iyo halka uu ka soo jeedo. jaceylka dhabta ah wuxuu leeyahay waqti iyo imtixaan adag oo loo baahan yahay in laga gudbo marka sida xaqiiqda ah loo hadlayo. waa wax adag in naftaada qaabto adigoo ka fikirayo farxadda aad heli karto maalimaha ka mid ah. jaceylka dhabta iskama yimaado ee wuxuu jiraa sababo horseeda inuu ka dhex dhasho laba qof oo nolosha u diyaarsan inay u kala qabsaan si wanaagsan. sida ugu dhow uu ku yimaado jaceylka dhabta waa inaad qof la joogto muddo sanad ah si aad u ogaato una hubsato wax aad haysato inuu yahay sheegii noloshaada u baahneed. laakiin Qamar Suugaani Ugbaad Aragsan hal sano ayaa sheegaysa hal bil xataa islama joogin sanadkii 2018 ilaa iyo hadda. waxaa jaceylka Soomaalida ku soo badanayo in naagaha nimankooda furaan. waxaa ninkeeda iska furtay xilwaanad Ilhaan Cumar oo ah xilwaanad ka soo jeeda aqalka Koongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa si rasmi ah maxkamadda ugu diiwaangelisay codsi ah in laga furo ninkeeda ahaana aabaha 3 caruur xilli ay jirto xan ku saabsan in xiriirka hoose la leedahay nin degan magaalada Washington DC oo lagu magacaabo Tim Maynard. warqadda codsiga furiinka Ilhaan ee ninkeeda Axmed Xirsi oo 4 Oktoobar laga diiwaangeliyay maxkamadda Hinbot County ee gobolka Minnesota ayaa ku sheegtay in guurkoodu uu yahay mid aan dib loo hagaajin karin. Ilhaan Cumar oo 38 jir ah iyo Axmed Xirsi isguursaday 2002 waxay mar kala tageen 2008 hase yeeshee waxay dib isku guursadeen sanadkii 2018. waxaa xiriirka guurkeena ka gaaray Ilhaan Cumar ayaa tiri waxaa xiriirkeena guurka gaaray dhaawac aan dib loo bogsiin karin ayaa ku qornaa warqadda ay Ilhaan geysay maxkamadda.
Ilhaan ayaa warqadahan ku sheegtay in iyada iyo Axmed midkooda uusan doonin in midka kale lagu ilaaliyo inuu dhawaado. Waxay sheegtay inay doonayaan in isla eg loogu ogolaaday hase yeeshee iyo korinta carruurtooda. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowr bil ka hor ay soo baxday in Ilhaan Cumar ay xiriir jecel hoose la leedahay Tim Maynard. Xaaska Tim oo lagu magacaabo Beth Maynard ayaa sidoo kale bishii Agoosto maxkamadda ay ka codsatay in ninkeeda laga furo kadib markii ay ogaatay in xiriir la leedahay Ilhaan. Tim Maynard ayaa maxkamadda Washington DC ka diiwaangeliyay kiis uu ku beeninayo inuu xiriir jecel leeyahay Ilhaan Cumar. Tim ayaa ka shaqeeya urur qaabilsan doorashooyinka taasoo lacag badan $250,000 oo doolarka Mareykanka ka heshay ololaha Ilhaan. Lacagtaasi ayaa abuurtay su'aal ku saabsan in shaqada uu Tim u qabtay Ilhaan aysan u qalmin balse lacagta lagu siiyey xiriirka labadooda ka dhexeeya. Sida ku cad warqadaha ee maxkamadda gudbisay Beth Maynard iyada oo Tim ayaa guuray bishii Abriil kadib markii Tim uu qirtay inuu xiriir jecel leeyahay Ilhaan. Ilhaan ayaa diiday in ilaa iyo hadda ay wax jawaab ah ka siiso warbaahinta xiriirka ee la tuhmayo inuu kala dhexeeyo Tim oo ah nin caddaan ah. Maalmihii dambe waxaa soo baxaya in Ilhaan Cumar laga duubo muuqaal aad u foolxumo badan ee wado khamri oo ah Tim Maynard oo nin caddaan oo gaal ah oo ka ganacsada khamriga. Wararkii ku soo kordha furiinka Qamar Suugaani iyo fanaanada Ogbaad Aragsan waxaa kala socon doontaan Horsocod Media. aad mar walba kala barteen inay nagu soo gudbiso wararka arrimaha fanka iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iskugu jira. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, muuqaalka like saar, commentiga hoos inoogu soo qoro. waadna ku mahadsantihiin daawashada aad daawanayso. Hay-adda Turkiga ayaa waxay dhiseen isbitaal weyn oo carruurta kaliya ah. Xagga waxbarashada ilaa iyo 1,500 arday Soomaali ayaa la siiyay deeq waxbarasho oo la iskugu jira dugsi hoose dhexe ilaa heer jaamacadeed. Waxaa la sheegay in deeqdaani waxbarasho ay ku baxday ilaa iyo $70 milyan oo doolarka Mareykanka sida ay sheegeen safiirkii hore ee Turkiga Soomaaliya u fadhiyay Kenny Trump. ilaa iyo 1,000 arday oo Soomaaliya iyaguna ay dalka Turkiga lagu siiyay tababar xagga luqadda Turkiga kuwaasoo inta dalka kadib ugu soo laabtay maanta dhammaantood u shaqeeya hay-adaha Turkiga iyadoo turjumada u ah isla markaasna ka shaqeeya mushaaraad wanaagsan oo qoysaska badan ku aflaxaan. Turkiga wuxuu caasimadda ka dhisay ilaa iyo 4 iskuul, 2 iskuul oo agoon kaliya ah, waxaana kale oo dalka meelo kale ka dhisay ilaa iyo 5 iskuul. Wuxuu Turkiga dhisay iskuul tababarka duulista hawada sare kaasoo oo kan kaliya ee dalka ku yaala lagu baran karo aqoonta garoomada iyo duulista hawada sare ee xiriirka ah. Mashaariicda waaweyn ee Turkiga ka qabtay dalka mashaariicda ugu weyn oo Turkiga dalka ka qabtay waa dhismaha wadooyinka laamiga ah ee magaalada Muqdisho. Dadka uu dhisay Turkiga waxay gaarayaan ilaa iyo 86 kiiloomitir kuwaasoo 22 kiiloomitir oo ka mid ah la geliyay nalal cadceed ku shaqeeya waxaana ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan Maka al-Mukarrama. Dhismaha wadooyinka ku baxday lacag ka badan 43 milyan oo doolarka Mareykanka. welina hawsha way mid socota. Shirkadda lagu magacaabo Fafori ayaa maalgashi xoogan ku sameysay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde laga soo bilaabo bishii Sebtembar 2013. waxay mashruuc ku kacayaa ilaa iyo 10 milyan oo doolarka Mareykanka. waxaa la sheegay in garoonka baaxadiisa la gaarsiiyay ilaa iyo in 60 diyaaradood ee mar kaliya isticmaali karto. garoonka uu xariga ka jarayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaa loo dhameystiray dhammaan adeegyada uu garoonka u baahnaa. shirkad kale oo ka mid ah kuwa ugu weyn Turkiga lagu magacaabo Albayrak ayaa iyaduna la wareegtay maamulista dekedda weyn ee Muqdisho bishii Sebtembar 2014 halkaasoo la casriyeeyay adeegyada iyadoo la balaarinayo baaxadda dekedda si ay
qaabili karto xamuul aad u badan. xiriirka diblomaasiyadeed ee heshiisyada Turkiga waxay safaaradda furtay magaalada Muqdisho wuxuuna noqday dalkii ugu horeeyay aanan Afrikaan ahayn ee safaaradda ka furta Soomaaliya muddo 20 sano ah. dalka burbur ku jiray safaaraddan waxaa la furay 1 bishii November 2011 waxaana xilligaasi safiir loo soo magacaabay Danjire Ken Trump. Soomaaliya ayaa iyaduna safaarad ka furtay magaalada Ankara ee Turkiga waxaana u fadhiya Danjire Maxamed Mursal. shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa markii ugu horeysay bilowday duulimaadyo toos ah oo ku imaanaya magaalada Muqdisho bishii Maarso 2012 waxayna noqotay shirkaddii duulimaadkii kaliya caalamiga ee duulimaadyada caalamiga ah ka sameysa Soomaaliya. Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo u badan xagga ciidamada. heshiiska ugu horeeya ee xagga ciidamada waxaa qalinka lagu duugay bishii May sanadkii 2010 waxaana heshiiskaasi fulinteeda loo dhaqaaqay bishii November